golaha deegaanka degmada Burco ayaa yeeshay kalfadhigii sideedaad oo ah mid xasaasi ah oo qaatay muddo 2 cisho. Kalfadhigan golaha deegaanka degmada Burco ay qaateen ayay ku soo saareen inay kaga bedeleen xaafad ku taala magaalada Burco oo loo yaqaan October ay haatan u bixiyeen gobolkii ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsada oo loo yaqaan Shifiine. Kalfadhigan ayaa bahda saxaafaddu ay dibadda ka taagneed muddadii 2 cisho ah oo soconayay. Kadib markuu kalfadhigan soo idlaaday ayaa maayirka degmada Burco ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah xildhibaanada degmada Burco ay ka hadleen qodobadii ay kalfadhiga kaga doodayeen وحيابه يسحيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أنت وبيش تهاي تدبير تمام بيش الأفراد لبعض كل أفرية طبعاً وحال كان موجود ما يستلمي إلهي مهدي كالفرد تضباط سديدات يقولها الديجان كدق مدبرة. يقولها الديجان كدق مدبرة ومسؤولية ده وقدم بيسي دق مدبرة. وحياة بدن باحل كساري وحياة باحل كساري هي يو دق مدبرة يهرمر كده أيوم باو يولا أما لو رانكرا وأوبرت المعامل. haddii aanu hay golihii deegaanka degmada Burco waxyaabaha saaka aan ansixinay waxa koow ka ah in aanu hirgelino wado 10 kiiloomitir ah oo magaalada Burco laga sameeyo 10 kiiloomitir kharash ku baxaya waxaan qayb ka mid ah naga caawisay dawladda dhexe aad waan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka iyo wasiirka madaxtooyada aad baan ugu mahadnaqaynaa qaybna waxa bixinaysa dawladda hoose degmada Burco shicibka iyaga iyo shirkadaha degmada Burco ka shaqeeyaan qaybta saddexaad ayay iyaguna naga caawinayaan wadadaas 10 kiiloomitir waxa ku baxaya lacag ka badan $1 milyan ayaa ku bixi doonta taan ansixinay insha Allah si degdegan waa loo dhisi doonaa laamigaasina wuxuu noqon doonaa laami aan ahayn laamiyadii hore ee double service ka ahaa Burco laga sameeyay jiray insha Allah wuxuu noqon doonaa laamiyada casriga ah ee caalamka kuwa u eeg noqon doonaa waana insha Allah إن الصداق كهر قشنا وارجيني إلهي بنكر رجينا سبحانه وتعالى قرننا من السوماليلاند ما لبضن بالله صمر in 1960 ركبوا سهل جميل ركبوا صار دنتين ركنا وصار داوعمين ركبوا كقبلامي أنت هو يكو قبلان تترمى أنت قفت مرة إنك يدي كويدي عرض يدي كويدي ترمى ما أنا بميل بمريس لا ينقل اعترافي هديان هاي سوماليلاند ومقالة أفراد الشفيل يعرق UK أيها اللي ينقل اعترافي ويكون مهسين مرة هوري أنا أقول هذه أفكار قولها ديجان كديمة برعو وحا أن أقدر إن تهنيد يبقادين يسلام ريرين على سوكو بكرينين رجي هوشة أبابلي يرجي فلي يرجي كتيبة وأنا مهادين هنا waxaan leenahay ragii jira noqdo ayaan leenahay ayaga laftigooda golaha deegaanka Shafiil waxaan u diri doonaa hadiyad hadii aan nahay golaha deegaanka degmada Burco hadiyad heer qaran ayaan u diri doonaa lamilaawaan oo lagu xasuusan doono taariikhda maanta maragaysan يعني markhaatiga laga yahay madasha ayaanu iyadana guddoonsiin doonaa waxa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco isla qaateen xaafadihii magacyada uu bixiyay taliskii Burcada ahaa siyaada sida xaafada October oo kale oo maalintii ciidiisa uu ku magacaabay in laga bedelo magacyadii faqashta in laga bedelo oo magacyada يعني هنا قالوا لنا نقول بدل حافظها أكتوبر
golaha deegaanka degmada Burco waxay isla qaatay in magaca October la yiraahdo 21 October waa maalintii alla naxariistaankii waddanka uu qabsaday in laga baabiyo magaca oo loo bixiyo degmadii ugu horeysay ee dunida dusheeda qarannimada Soomaaliland ictiraaftay oo ah Shafiil ama golaha deegaanka degmada Shafiil loo bixiyo xaafadda October maanta kadib xaafadda October loo jiray waxa la yiraahdaa Shafiil baa la yiraahdaa arrintan Shafiil iyo xaafadda October oo xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi oo golaha soo dhigay in loo bixiyo xaafaddii October magaalada Shafiil ay ictiraaftay si gacan taaga ayaa loo ansixiyay arrinta taasi waxay tusaysaa oo aanu leenahay reer Shafiil inaanu abaalgud weyn u hayno mid dambe iyo mid horeba aanu hayno xaafadda October waxaan ugu magacdaray inaanu magaalada Burco iyo Shafiil isku xidhno ta kale waxaan leeyahay degmadiina ictiraaftay ee u horeysay ee Shafiil aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa annagoo maanta ku magacoonay oo xildhibaan Mubaarak Bidhi oo noo soo jeediyey kalfadhigana oo ku soo daray in loo bixiyo Shafiil xaafadda ka mida degmada Burco ee magaciisa Barre 21 October uu bixiyay waanu ka bedelnay waxaan u bixinay maanta waxa weeyaan Shafiil وحافظة أكتوبر تاو حلولنا هاي ومجا عصيب إنك لقى بلابو يكون هالكليسة السلام عليكم ورحمة الله. أول بحية وحيابه هنتي لقى جهاد لي كالفريق استعداد هنتي وحيابه ذلو مهمة وانو كان سحني سيدي أنواع سحني يغاب كانوا سحني لقدوميها كهلي هنتي أنا قلت كنت وانك اللي بعناهان طبعاً وحن عادن نوح أما أنا السنة دي بركان مقالة تشوفني إمام بركية ثلاثة دقيقة نحيني نحتال نوح يسكت دومناني يسكت حنان تاسان هرمرك الدقيقة دي أما حاجة اللي بتجيده هنقطه أما حاجة هرمرك هنقطه أما حاجة وحصل صارك هنقطه يسكت حنان تقولها الدقيقة كي برعو بعد نحتال وأنا قبل هذا علينا رنتي قولها الدقيقة waxaan kaloo halkan uga mahad celinaynaa dadweynaha reer Burco oo had iyo jeer horumarka degmada iyo wax qabadka looga baahay degmada qabtaan dhinacooda iyo shalayba waxa la galay xilliga roobka marka la galayna waxa kulay loo baahan yahay cimiladu way isbedelaysaa nadaafada ayaa faraya inay kordhiyaan si aan hadhow shubano iyo wuxuu iman si looga gaashaanto dhulka qashinku hadda badanka leeyahay loo inay iska hagaajiyaan dhulka qalajiyaan golaha runtii waxa loogu soo xiisay aad u fiican waxyaalaha go'aanka hoggaanka waxa kamid ah dee waxa sheegay gudoomiyihii ku-xigeenkii xildhibaanadii ugu horreeyay laakiin wuxuu baan hal qodob baan doonayaa inaan ka hadlo oo ku saabsan qodobka ajendaha ay su'aaluhu qodobka soo jeedintiisa anigu aan lahaa ayaan ku soo diray kalfadhigan anigu oo ahaa qodobka soo jeedinta anigu aan lahaa ee anigu aan keenay golaha marka maanta waxaan soo jeediyey in laga bedelo magaca golahan u soo jeediyey golahan u mahadnaqayaa guddida fulintan u mahadnaqayaa inay runtii iyaga ansixiyey iyagaa kalfadhigan ku daray waxaana maanta laga bilaaba la ansixiyey oo golaha deegaanka Burco ansixiyey in xaafadda October magacii laga bedelay maanta laga bilaabo xaafadda la Shafiil intaasi kadib baada saxaafadda gobolka Togdheer ayaa su'aalo kala boobay su'aalo ay kamid ahaayeen wadooyin qabyo ah oo xadhiga ka jaray madaxweynaha Soomaaliland iyo guddida fulinta iyo guddida bilicda degmada Burco oo soo saaray waraaq ay kaga rarayeen geerashka gudaha magaalada Burco wadada nasiib wadanta waxa loo kordhinayo waa drainage meelay biyo maraan baa loo kordhinayo laakiin dhismaha wadada markii xadhigan ka jarnay way dhameystireen wadadaas shishe way dhameystireen waxa harsan drainage laftiisa waa harsan yahay meeshii biyo marin waa harsan yahay ayada laftigeed wadooyinka 10 kiiloomitir imika dib habeynta aan ku sameyn doono ay ku jirtay wadada lagu gooyay contract lagu bixiyay hay'adda dhisaysa intaas ay qaybta hadhayna annaga hirgelinayna miisaaniyadda ee qorshahayaga soo socdana way ku jirtaa waana dhameystireen waxa weeyaan waa su'aal aad u fiican khadrow su'aasha ay weydiisay waxa uu qorshaysan waa run marka qof leeyahay guur weyn meeshuu degi lahaa haysan laba week baan noogu qoran warqadeena inuu ka guur qofka meel haystana halkii haysto degay
kii aan meel haysanna waxaan ku qasbanay inaan meel geyno waxaan kaga faa'iidaysan lahaa fursadda halkan taalla maanta kaga faa'iidaysan lahaa waxbaanu qabanay wixii aanu qabanay waxaan ku darsanayaa waxaanu nahay haddaan nahay golaha deegaanka ee Burco golaha keliya ee samaystay koox kubadeed waxaanu leenahay ciddii nala ciyaar lahayna soo sheegto xildhibaanada golaha deegaanka Soomaaliland asaasiga oo qaatay muddo 2 cisho oo madaxa la iskula jira ayaa maanta ku soo gabagaboobay mid qodobo badan lagu ansixiyay waa Khadar Cabdi Salebaan Khadar Buuni shabakada caalamiga ee Hadhow News magaalada Burco.